asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha meel walbaad joogtiin soo dhowaada waa walaalkii shakuur cabdallah iyo video cusub maanta ku saabsan sida bootyada laiskugu xiro waxaana soo diyaariyey gabadha walaasheena ah ilaahay kheyr badan ha siiye cadday yuusuf dalabka bootyada ayaa tani aad bu ugu batay khaasatan dhanka spaceka markaan joogno spaceka mtrade habeenadan aan qabanayno twitterka noogu imow adiga xataa haddii aad youtube-ka video ka aragtay rabtid su-aalo ay kugu xiran tahay ama su-aalo aad rabtid inaad maxaa la dhahaa ku wareersan tahay waxaa noogu imaan kartaa spaceyada twitterka meeshaasaan habeen dhaaf mise habeen walba marmarka qabanaa arrimo ku saabsan cryptocurrency iyo maxaa la dhahaa stockaba dalabkan videogan waa videogii aan soo dhigay 2 maalin ka hor 2 days ago maasha allah ilaa waxaan u malaynayaa 600 way fiirsatay 2 maalin 600 waxa waaye taasi waxay caddaynaysaa in baahi loo qabo dhanka iyo maxaa la dhahaa decentralizeka degsiga in la fahmo qaabku u shaqeeyo iyo sida looga faa'iidaysto iyo sida la iskaga ilaaliyo marka hadda asxaab badana kumid mahadcelin baraarujin soo qoray dhammaantiina waad mahadsan tihiin qofaan rabay inaan qoraal nii soo qoro laakiin wallaahi waqtiga aada igu yarsaa dartaad aan maxaa la dhahaa ishag u awoodi waaye laakiin qalbigaan igu ogsoonahay marka jawaabtii wiilkan walaalkeena inta ku qoran cabdiraxmaan sheekh wuxuu soo qoray thankis ustaad aniga ustaad mi shakuur lay dhahaa walaal shakuur hadda ay dhahdeen ama magac cusubaa lii bixiyeyba shakuur sharma marka magaca shakuur le hadda ay dhahdeen waa igu filan tahay aniga ustaad ma ihi thankis ustaad boot haddaad na bartid waan ku ducayn lahayn marka ducada waxaa maanta nala qaybsanayo walaasheena cadday yuusuf waxay noqonaysaa cadday channelkani dad badanaa video soo dhigay 2 sano hadeertaan channelkani uu maxaa la dhaha shaqeynayay inkastoo sanadka hadda lasoo dhaafay iyo bilooyinka hadda lasoo dhaafay aan wax video soo dhigin waa iska mashquul adduun laakiin hadeertaan waxaan arkaa asxaab badan inay xiiseynayaan dhanka iyo decentralizeka saas darteed maxaa la dhahaa videogii shalay 2 beri ka hor aan soo dhigay asxaab badanta commentiga kasoo bixiyey iyo daawashada aadka u siyaadada ah ilaa 600 qof ay gaarayso 2 maalin gudaheeda caddeyn waxay u tahay in dadka asxaabta ay u baahan yihiin information dhankani meel walba ku saabsan marka waxaan sababta aan waqtigayga wax yaryahay waxaan ka dalbaday walaashay cadday inay video maxaa la dhahaa dhankaasi ku saabsan ay noo samayso ayada iyo qaali gabadha walaasheen qaali badanaa waxa waaye telegramkay asxaabta ku baraan waxaa xasuusatiin waxaa xasuustaa dhowr beri ka hor 20 wiil ee telegramka maxaa la dhahaa ay boodka ku fahamsiisay sida la iskugu xiro phantom wallet iyo bootiyada laakiin su-aashu mar walba way soo noqonaysaa markaan joogno spaceka mtrade arrinta boodka aaday usoo noqnoqonaysaa marka sida arrintan usoo afjaro gabadhii walaashay cadday waxaan ka codsaday inay video soo sameyso marka waxaana u mahad celinaya cadday idinkana u mahad السلام celiya عليكم ورحمة idinkana u mahad celiya cadday yuusuf twitterkeeda taga cadday ku qoran cadday iyo qaali labadood way soo baxeen qaali waatana jim older caddayna waatana marka cadday oo videoga hadda noo samaysay cadday waa kana twitterkeeda
twitterkeeda taga qoraal u qora hadaa bahalkii maxaa la dhahaa ka faa'iideen insha allah videogan hadde waatana qoftiin dhahay 20 wiile maxaa la dhahaa ku bartay telegramka qaali ayadana waatana twitterkeeda badanaa asxaabta waxay joogaan twitterka aad ku xirnaanaysiin anaa haddan ii sheegayo oo mar walba live laga soo galo maxaa la dhahaa mtrade waa kana ninkan waxaa waaye milyoneerka dhalinyarada soomaalida ma fahamtay marka waa ifaham ninkan waaye mtrade sawirkani maxaa la dhahaa nft-ga u saaran tahay ninkan ku darsada si aa mar walbo liveka habeenkii lasoo saarayo aad aragtiin insha allah okay waan noqonaynaa waxaan aadaynaa videogii sheeg cadday yuusuf aan igu wareejinayaa asalaamu calaykum maanta waxaa rabnaa inaan sameyno master board boodka wuxuu kaa caawinayaa transactionska buy and sellka inuu ku fududeeyo meme coinka markaad joogtid qofkii aana ka gaarin oo swapka iyo wallet connectigi waxaasoo dhan inuu sameeyo oo rabin baa isticmaal boodka. hadda waxaa waaye bood shaqadiisa bilaabeynaa sniberaa taabaneynaa. sniber markaa taabano soo kugu shaqeeya boodka waxaa u baahan tahay gruubyada inaad ku beertid si informationka meeshaas aa ula socotid wixii update ah. marka waa inaa mid walba mar ku beertid kadib maxaa la dhahaa kan u sareeyaa taabaneynaa dirtaan gruubyada midba mar inaa ku beertid waa kan u sareeyaa hadda taabaneynaa waa join gareynay kadib waa ka laabaneynaa boodka inaa u laabaneynaa waa mid inaa u sameysid haddana midka labaad joinaa dhaheynaa. dadka mar walba meelahan waa hilmaamaa markaa kan join aa dhahdid mar labaad waa inaa meesha verify aa taabatid kadib start aa dhaheynaa. wuxuu ogaanayaa inaa human tahay inaa bini aadan tahay waa taabaneynaa. markaa taabano mar kale haddana waa inaa verify dhahna kiligaa dhaheysaa kadib meeshaan dadka mar walba way hilmaamaan. markaa intaas samaysa linkigaas buluuga waa inaa qaadid expire kaa noqonayaa. linkiga buluuga waa inaa taabanaa kadib groupka join aa dhahno kadib boodkeeni aa u laabaneynaa. boodkeeni sniber aa dhaheynaa. sniber markaa dhahno hadda waa kana wuxuu soo sheegayaa wixii kaa maqan. hadda gruubyada 2 xabaa soo sameyn midka saddexaadaa iga maqan kii saddexaadaa ku laabtay ilaa aa midba marka taabatid kuuma shaqeynaya boodka requirementigiisa kamid joinaa dhahnay waa laabaneynaa marka laa sniber dhaheynaa. mar walba waa inaa sniber ka taabatid kadib hadda optionskaa noo soo baxay meeshaas instructionku uu qorayaa wuxuu ku dhahayaa si gruupka ah ula socotid oo nu isticmaashid waa inaa bahaladaas aa geshid telegramyada ama gruupka access aa ugu lahaatid. instructionkan si fiican iskaga akhriyo ku dhahayaa. boodkan shaqooyin badan buu qabtaa laakiin waxyaabaha basicska maanta maxaa la dhahaa ka sameyneynaa inta kaleeto mar kaleeto cashir kasoo sameyn doonaa insha allah. hadda waxaa u baahannahnay wallet inaan kusoo xirano meeshaaneeta 6 jeyna noo taala. hadda jeynkaa rabtida isticmaali kartaa. tusaale maanta anaga waxaa sameyneynaa solana jeyna isticmaaleynaa. solana taabanay marka wuxuu rabaa inaa wallet ku xirtid. hadda fantomkaagii asoo kugu diyaarsan yahay baa waxaa sameynay fantom horta wallet waa inaa haysatid. connect markaa dhahdo wuxuu ku dhahayaa seed phraseska ama private keyga keen oo meeshaan soo geliyo ku dhahaa. soo inaa maxaa la dhahaa private keyga soo gelin waxaa u baahannahay inaan fantomkeena tagno meeshaas settingka cornerka geeska leftiga settingka meeshaasaa taabaneynaa. markaa taabano qeybta account aa kasii galeynaa. accountka markaa kasii galno meeshaasuu noo yaalaa show seed phrase aa dhaheysaa mase show private key. hadda xaarmana private keyga inaan soo qaadano. private keyga soo qaadana meeshaas waa inaad tag saartid continue aa dhaheynaa. 3 jeyna meeshaan noo taalo oo phantom ay support gareysaa. anaga maanta waxaa u baahannahay solana seed phrasekeeda inaan soo qaadano. marka waxaa rabnaa inaan ka doorano solana
ethereum daaribta aad soo qaadan kartaa haddaa ethereum sameynaysid. Polygon daaribta sidoo kaleeto. waa kan hadda wuxuu tusayaa private keygiina soo qaadanaynaa, copy soo dhahnay. waa soo baxeynaa, waxaa kusoo laabaneynaa telegramkeeni boodka. meeshaas waa inaa baast ku dhahdid. baastia ku dhaheynaa. hadda Solana walada hadda noogu darsantay. waladyada kale daaribta inaad ku darsatid sidoo kale sameynay. hadda waxaa rabnaa marka settingka inaan usii gudubno. meeshaas config ku qoran tahay mase configure waxay u taagan tahay settingka. so settingka hadda inaan galno waaye. anti-mef waa inaan dooranaa. anti-mefka wuxuu boodkan dhan loo isticmaalayo waa transactionka si uusan kaaga daahin, buy iyo sellkana ay kugu fududaato, boodka kaleeto kaa hormarayn uu kaa celiyo ama price kugu qaaliyeynayaan. anti-mefka waa inaad tig saaratid. hadda waxaa u baahanaa sleep pageka adjustment inaan ku sameyno. tusaale waxaa gelineynaa 100% aa gelinaya. tusaale 100 aa gelineynaa. sleep pageka wuxuu u taagan yahay sida gaaska intuu kaa qaadan lahaa, transaction gaaska intuu qaadan lahaa u taagan yahay. meeshaas 100 aa geliyay 10 waa gelin kartaa. hadda intii basicska ahaydba waxaan u baahanahay marka inaan baxno oo soo qaadano wallet ama address. inaan soo qaadano address coin aa ku baroween waxayna inay shaqeynayaan in kaleeto. marka waa baxeynaa, waa daxi toolka inaan aadno. daxi tool baa tagaynaa. meeshaan rabnaa inaan coin ka raadino. all chains meesha ku qoran tahay taabanay. Solana chain ka dooranay. Solana chain markaa ka dooranay, new social soo isoo saaraya. qaybta beerka dooranay. hadda tusaale bisa sameynayna coinyaashana fiirina. hadda midka u horeeyo kaleeto baa soo qaatay. adresskiisa soo qaadanaya si aa ugu baroobeen waxayna inay noo shaqeynayaan in kaleeto. adresskaasa copy soo dhaxday. waa soo laabtay, boodka u soo laabtay. meeshaasaa baast ku dhehee waa gelinaya. markaa iska soo fiirisid coinaa soo heshay, coinka waa iska soo fiirisay, waa soo laabaneynaa. korkaas wuxuu kuu sheegayaa coinka market capkiisa, wuxuu kuu sheegayaa liquidity-ga inta ku jirto. hoosaa usoo baxnay. defaultiga Solana intaa ku gadan lahayn. haddaa rabtid 0.1, haddaa rabtid 0.2, waxaa rabnaa taabaneynaa automatic nagu qaadaya. hadda tusaale haddaa intaas waxa defaultiga aadan rabinna oo wax kaloo ka duwan inaad sameysid aa rabtid, waxaa sameynaysaa meeshaas buy xsol ku qoran tahay taabanay. inta Solana aa rabtid inaad gadatid oo lacagteed aa ogtahay aa soo taabanay. tusaale 0.3 oo kale aa rabnaa. hadda waxay dhahayaa because wallet lacag kuma jiro way iga soo diidaa. dhulka hadii lacag kugu jirto ku ogolaanaya. marka hadda waxaa rabnaa buyga waa aragnay, sellkana inaan aragno. hadda wax coin ma aan gadanin, marka traga taabaneynaa. coinka markaa gadatid hadhow bin buu kuu saaraya. meeshaas kore hadda saa ka aragtiin telegramka korkaas waxaa kugu soo qormayso percentage-ka intaa ab tahay. hoos waxaa ku taalo initialka oo ah 0.2 oo kale tusaale aa gelisay initialkaaga waaye. meesha ka hooseysana faa'iido iyo khasaaro waqtigaas wuxuu taagan yahay. time lapse-gan waxaa waaye inta markaas coinkaas aa ku jirtid. waxaa kasii hooseysa price-ka ama market cap-ka coinka maraayo. waxaa kaloo ku xigta price impact-ga. haddaa weylta oo kaleet meesha percentage-ka intaad kuu sheegaya. hoos expected payout-ka waxaa waaye tusaale 0.2 waa gelisay. markii laga jaro boodka wax yar uu qaataa. wax dhan markii laga jaro intii aa qaadan lahayd uu soo saaraya. hoos markaa imaanay coinka inaa iska gedidaa rabtaa. coinka inaa iska gedid meesha default ahaan waxaa noo yaalo 100% haddaa rabtid waa gadi kartaa. haddaa rabtid 75% aa gadi kartaa. haddaa rabtid 50% aa gadi kartaa. 25% options kasaa meeshaas noo yaalaan. haddii kaleeto oo aad taqaanid inta Solana ay tahayne Solana ahaan u gelinay. marka dadka badanaa waxaa u fudud percentage-kaas iska doortaan. 50% whatever ay rabaan iska doortaan. laakiin haddaa gelinaysid Solana ahaan u gelinaysid optionkeeda meesha ku yaala
coinyaashan shitcoinka waxay u badan yihiin wax supply-gooda badan yahay coin ahaan uma gelin karta laakiin haddaa rabtid tusaale 10 coin inaad iska gadid meesha ku qoran tahay sell x aa taabanayna hadda marka coinkii waa ku jirtaa waa ka maqneed cabaar waa soo laabatay waxaa rabtaa inaa ogaatid market cap waxaa laga yaabaa wuxuu boodka inta kaa tusaayo iyo market capkii oo markaa tagtid dexa toolka inuu kala duwan yahay hoosa usoo bixinaa meeshaas oo greenka refresh kulantaa taabanayna refresh adheena hadhow update-ka meeshaasoo kaa tusaya marka intii opshino kaleeto boodka leeyahay waxyaabo badan oo kaloo qabtaa sidaada bayda dib oo kale hadaa sameynaysid ama auto sell oo kaleeto inaad sameysid markaa rabtid adoo ka maqan marka